وبركاته دمانتي وإذن سلامي إلهي وحا إذن كغرجينيا عمر دير عبادة دميستيران يعافي مادن ميلكسو دونيدك جوغتان كسو دوادا channelكس أنفع ومر والبو إذن كلو ذاغو مركان فرصد وهلو إن وحي تلا وحي حسوسين وحي كلو آن إذن لجعلاضو إنان إذن لو ذاغو dadkiina hore igu xirnaa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dadkiina cusubnaas kusoo dhawaada wadna furan waji furan iyo gacmo furan fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe saar adiga aad iyo aad u mahadsan haddii aad ka heshay like saar dadka asxaabtaada iyo contactka aad la xiriirtidna la sii wadaag maanta waxaan jeclaystay insha Allah maadaama ramadaankii soo dhow yahay maalmo qura un ka hareen inaan idinla wadaago xusuusin aan isleeyahay sida aan uga faa'iideysan karno ramadaanka talooyin ama xusuusin waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah sida dhammaantiin la socotaanba waqtiga muhiimadda uu leeyahay iyo waqtiga sida nabigeena calayhi salaatu salaam uu nagala dardaarmay siiba bisha barakaysan ee ramadaan macnihiisa ma ahan inaad ku lumisid waqtigaaga oo dhan jikada ama ma aragtay wax kale oo macquul ahayn ama micno weyn lahayn bisha 12 bilood ee sanadka ka kooban yahay waa bil qura sidaad la socotid oo og tahay marka macnaheedu waxa way bisha muhiimad gooni ah inay u leedahay dadka muslimiinta dhamaantood soo waxaan la hadlayaa si gooni ah gabdhaha ama qof kasta oo jikada waqti ku lumiyo rag iyo dumarba qofka aragti oo ramadaan macnihiisa ma ahan ina cuntooyinka hore cuni jirto cunto ka badan cunto aad uga sii fiican ina cuntid ma ahan waa inaad dareentid baahida iyo dhibaatada iyo dadka baahan ee saboolka waxba haysanin waxaa muhiim ah marka inaad waqti badan ku luminin jikada balse aad waqti badan ku lumisid akhrinta quraanka dhikrka ducooyinka salaada iyo wixii kale camal wanaagsan waxaa kaloo muhiim ah inaad og tahay waxyaabaha kale ee waqtiga kaaga lumo guud ahaan inaad qortid inta ramadaanka la galin ka hor waayo sidaad uga hortagtid waxa sidaad ay kaaga luminin waqtiga lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaanka waxaad sameyn kartaa oo kale hadii aad go'aansatid inaad ku sii socotid inaad cunto badan karisid ama jikada waqti badan ku lumisid waxa muhiim ah inaad ka faa'iideysatid freezer ama fridge hadaa haysatid oo bishii dhan intii aad cuni lahayd oo kaleeto aad hal mar ama hal isbuuc sabti axad camal adi iyo group kaleetina isku imaadin hal mar samaysatiin aad iska xariis waxa ugu shaqada badan leh oo waqtiga badan qaato waa sambuuska sida la socdo so waxaad sameyn kartaa saas oo kale freezer ama fridge hadaa haysatid hadii aadan haysanin marka waxaad sameyn kartaa maybe dad kaleeto ayakana fridge ama freezer haysanin inaad team la noqotid oo ma aragtay urur camal shan gabdhood intii aad heli kartid oo qof oo kale camal 30 qof hadaa heshid ama 30 family oo diyaar u ah inaad kala qaybsataan 30 maalmood ee ramadaanka oo markaas u sheegtid intii maalintii sambuus aad adiga cuntid oo kaleeto ama familkaaga ka kooban yahay ayakana sidoo kaleeto si cadaalad oo sinaan camal inaad maxay ahayd wada sameysaan soo qof kasta waxa laga yaabaa maanta oo kale 30 gabdhood hadaa tihiin ama 30 qof gabdhi wiilal isku jira aad tihiin ina qof walba maalin bisha dhan oo hal maalin kamid ah sambuus sameeyo laga yaabo halkaas maalin inaad sameysid 100 xabo marka waxay kaaga faa'iido badan tahay ma inta maalin walba sambuus sameyn lahayd samaanta adiga hadaa sameysay bari ina qof ku qoran bari dambana qof bari dambe ilaa 30 maalmood qof walba maalin ku qoran tahay qarashka duu marka qofkaas awoodin oo kale waxa u sameysan kartaa qarashkaagi waa u geysan kartaa qofkaas un baa sameynaya maalintaas sida burkii sambuus hilibkii ama tuna waxa rabtid ama qudaarti kale waxa adiga aad jeceshahay intaas halkaas ayaan uga soo gudubnay hadii aad tahay qof qurbaha ku nool ama qurbaha caruur ku korinayo waxaan also jeclaan lahaa inaan idin soo xasuusiyo muhiimadda ay leedahay in ciyaalka ay ka qayb qaataan in guriga si gooni aad u sharaxdid si gooni aad u soo dhaweysid bisha barakaysan ee ramadaan sida ciida u soo dhaweysid oo kaleeto sababtoo ah wadan qurbe hadaa ku nooshahay ama wadan aan islaam ahayn waxay ka qayb qaadanaysaa ma aragta kuriimada ciyaalka iyo jacaylka diinta islaamka ay u qabaan iyo ma aragtay inay mar walba ma aragtay muhiim u tahay qof kasta muslim ah in si wanaagsan loo soo dhaweeyo ramadaanka soo dhaweynta waxa kamid ah sharaxaad guriga si gooni u sharaxdid wax ramadaan ku saabsan ku dhadhajisid darbiyada ayakana kaalinta ugu weyn aad siisid ama hogaaminta ugu weyn ayaka qaataan balse aad noqotid qof ma aragtay hago tala siiyo ra'yina ku darsado marka ciyaalku waxay noqonayaan guri islaam ku soo koray oo og muhiimadda ay leedahay bisha barakaysan ee ramadaan
marka waxay noqonaysaa wax weligood niyadooda ka go'in qalbigoodana ka baabi'in taasna waa muhiim dadka jooga wadamada islaamka ah way u fududahay taas inay ku koraan ee arkaan waayo wadankii dhan bay'ada ciyaalka kula korinayso maadaama wadan islaam ay joogaan balse waxaan fariintan aan la wadaagayaa si qaas ah dadka qurbaha ku nool ee wadamada islaamka ahayn caruurta ku korinayo midda ugu dambeysay aan rabay inaan idinla wadaago waxay tahay dhaqaalaha oo kale ama qarashka kaaga bixi jiray guud ahaan bisha inta ku adeegan jirtay oo kale ramadaanka ka hor waxaa wanaagsan haddaa 10% 20 ama 50 haddaa awoodid inaad siisid qof sabool ahoo baahan sababtoo aad saa u dareentid maaragtay dhibaatada ay leedahay baahida iyo saboolnimada ma ahan maaragtay bishii cuntada ma ahan waa bishii soonka inkastoo aniga aad iyo aad u mashquulsanahay bal haddana waxaan go'aansaday in maaragtay waqti gooni ah aan maxay ahayd ama qarash yar oo kooban oo gooni ah in aan ciyaalka wax ugu soo gadgado si aan u sharaxno waxyaabo qaar ee ramadaan ku saabsan si ay u dareemaan ramadaanka iyo muhiimadda uu u leeyahay qof kasta oo muslim ah aniga qurbaa ku noolahay ciyaal hooyaan ahay ciyaal ilaahay siiyo alxamdulilah intaan ciyaal helin ilaahay ciyaal ha siiyo intii haysatan ilaahay ha u barakeeyo marka hadda waxaan ku jiraa inaan wax yar soo iibiyo kabacdina aan sharaxno insha Allah haddii eebaha awooda la idmo waa idinla wadaagi doonaa markaa sharaxoo kale ama markaa wax sharaxeeno waa isku dayaa haddaan xasuusto inaan idiin soo duubo oo idiin soo geliyo haddii kalena iska kay cafiya waa iloo badanahay waa idinla kaftamaya marka muhiim waa ina ciyaalka waqti gooni u samaysid xataa wax yar ha noqoto siiba mararka muhiimka ah sida ciidaha ramadaanka oo kaleeto marka intii aan maanta idinkugu talagalay ee ku saabsanaa ka faa'iideysiga waqtiga siiba bisha barakaysan ee ramadaan waa iga intaas waxaa idiin soo jeedinaya aniga oo ah shukrin aadan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin wixii aan qalday aniga iyo shaydaankay ka ahaatay wixii aan saxayna ilaahay ayaa igu toosiyey oo leh mahad guud iyo mahad gaar labadaba mahadsanidin fadlan dadka la sii wadaag like iyo share na saar adigoo aad iyo aad u mahadsan waa inoo mar dambe oo xiisa leh insha Allah markii dambe waqti hela mid kale idinku soo tuuri doonaa wixii fariin ah hoos igu reeb mahadsanid mar walba ku soo dhawow channelka Anfac gacmo furan waji furan wadna furan mahadsanidin waa sidaas iyo nabadgelyo hadii eebaha wada idmo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bye bye